marmarka qaarkoodna qof calankii Soomaaliya oo buluug ah iyo xidigta dhaxda uga tiilasada u lulaya ee haddana dhibaatada marka aragnana waa si gaar ah haddana u sii xanuunsanayna gaar ahaan siyaasadda nooga ma jirto wax kala nooga ma jiraan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaan daawadayaal soo dhawaada mar kale iyo walaalkeen Aadan Karaama halka dabcan iga daawanaysaan barta YouTube-ka ku leeyahay Aadan Karaama. haddii ay tahay markii ugu horeysay inaad soo booqato fadlan subscribe nagu sharaf reexi gambaralka casna waa qofka ugu horeeyay soo garan muuqaalada iyo dhacdooyinka kala duwan ee xiisaha leh ee aan halkan kusoo gudbino. haddii aadan weli kusoo biirin sidoo kale soo follow garee page-kayga Facebook ee Aadan Karaama iyo sidoo kale barta aan ku leeyahay halkan waxaan ku hayaa runtii ninkii xasan sheekh maxamuud ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo maanta khudbadii jimcaha jeediyay oo ku soo qaaday markaasi xiisadda iyo xaaladda markaasi ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo ay dhowaan dadka deegaankaasi oo dhibaatooyin fara badan tirsanayay oo kacdoon weyn markaasi sameeyeen isla markaana ay banaanka uga tuureen maamulka Somaliland gudaha magaalada Laascaanood. shacab kacdoon sameeyay oo hubeysan ayaa markaasi dagaal ku qaaday ciidamo ka tirsan ama maleeshiyaad ka tirsan maamulka Hargeysa waxaana ay ka baaciyeen markaasi magaalada Laascaanood ilaa haatan waxaa halkaasi maamulaya dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada Laascaanood oo iyagu markaasi hubkooda la soo baxay. arintii sidaa ahayd dad fara badan ayaa kasoo falceliyay oo kasoo hadlay qaar si caadifadaysan uga soo hadlay qaar si Soomaalinimo uga soo hadlay qofba si uu qaaday arintii. marka ninkii xasan sheekh maxamuud ahaa oo warkiisa la eegayay bal waxa uu ka yiraahdaa arintaas maadaama hore uusan markii ciidamada Somaliland ay markaasi gudaha Laascaanood ku xasuuqayeen dadka shacabka uusan uga soo hadlin haatan markii ugu horeysay xiisadda Laascaanood ka soo hadlay laakiinse iska aamus ku roonayda ninkii dhammaa ee ahaa madaxweynaha Soomaaliyeed calanka buluugga ah ninkii maxaan ku sheegayay awoodiisa iyo quwadiisa Ilaahay baa quwad leh gacanta ku hayay madaxtooyada fadhiyay ayaa waxa uu soo yiri meesha la yiraahdo Laascaanood nabadgelyada ha qaadato wax siyaasadana kama lihin buu yiri wax siyaasada wadan dawladda aan nahay aan ka leenahay oo hadda si cada geed isku soo qaris iyo maxaan ku sheegay sidan iyo wax ma jirto ayadoo qayaxan cad bixu ku leeyahay meeshaas wax siyaasada noogama jirto noogama jirto macnaheedu waxa weeyaan wax siyaasado aan ka leenahay ma jirto. marka waxa kale oo uu sheegay markaasi in dadka wax jibinaya ee wax dilaya ee wax baabiinaya ee maxaan ku sheegay dhibaatada wada ay reer Laascaanood yihiin oo kusoo furiyo leeyahay nabadda qaat oo waxaan iska dhigay uu leeyahay. marka waa arin aad iyo aad loo yaabo oo laga xumaado madaxweynihii dhammaa ee qaranka Soomaaliyeed ee dadkan Soomaaliyeed oo dhan markaasi madaxweynaha uu ahaa in hadal noocaasa uu ka soo yeedho. malaha ninka xasan sheekh maxamuud la yiraahdo wuxuu isu haystaaba in Banaadirland waxa la yiraahdo uu markaasi madaxweyne u yahay oo uusan madaxtinimadiisa iyo kursigan uu ku fadhiyo fiiladii uu garan laayay wuxuu kala garan laayahay ma aqalkii gobolka inuu joogo Banaadir iyo aqalkii maxaan ku sheegay madaxtooyada qaranka inuu fadhiyo buu kala saari laayahay. marka uu ku leeyahay Laascaanood siyaasad noogama jirto bal macnaheedu muxuu noqon karaa waan ahayn wax siyaasad aan ka leenahay ma jirto horena dawlad loo ogaayo dawladihii meesha soo maray meesha siyaasad xumadii markaasi ka soo martay laakiin madaxweynaha cadaystay oo saas oo kale intuu la safaristay yiri dadka calanka Soomaaliyeed wada ee kor u taagaya ee u dhimanaya ee midnimada u dagaalamaya ee diidaya dalkooda inuu kala go'o maxaan ku sheegayay taariikhdii hore xitaa markii dib loo raaco dadkii markaasi xornimada dalka hubka iyo dabka u boobay ee u dagaalamay ee kumanaan qof ay kaga maqnayd ee xaq weyn ku lahaa qaranka Soomaaliyeed inuu yiraahdo wax siyaasad noogama jirto oo siyaasadeeda kuma jirto waa arrin aad iyo aad qof kasta oo Soomaaliya damiirkiisu joogo aqli leh markaas la yaabayo. dadka reer Laascaanood iyo dawladda Somaliland intaas aan sheegay ayaguna ay ku dhex jiraan war xilligeedii ma aha xilli la isdila ma aha 32 sano ka bacdi inaan isdilna sax ma aha waxa dhacay sida aan maalin dhaweeyay baydhabo wixii ka dhacay aan uga tacsiyeynay oo maalintii ka horeysay duurkaasi baadiyaas qabaa'ilka isku dira shabeellada dhexe aan uga tacsiyeynay yaan uga tacsiyeynayna ugana xunnahay waxa ka dhacay baryahan dambe magaalada Laascaanood dawladda Somaliland aan ugu baaqaya qoraga xalka kuma jira
dadka qoraga inta laga daayo dadka dad la hadla ha loo soo diro dadka dad la hadlo oo ay muxuu ahay hadalkooda dhegaysanayaan weliba ha loo soo diro caloolo waxay ku bukootay laguma daaweeyaan leedaha haddii dadka dad ay dhibsadeen iyo saraakiil iyo ciidan iyo dad hadallada qaarkoodna hadallo qurqurxoon maahane ha la iska daayo dadkaasi dhibaatada haysataa iyo waxa uu meeshaa ka dhacayay waana dhibayaan waa ka danqanaynaa waa dad soomaaliyeed meel kastoo ay soomaaliya ku nooshahayna dhibaatada gaartahay waa ka danqanaynaa dadka reer laascaanana idinku lafsadiina tala u soo istaaga oo cunfiga iyo colaadda iyo hadallada dhibka badan ee miidiyaha iyo meelaha la marsiinayahay ha la joojiyo waxba nooma soo kordhinayaan waxba nooma soo daaweynayaan mas-uuliyiinta iyo dadka hadda muxuu ahay dowladda somaliland waxaan leenahay sida bal si kale ha lagu dayo sidaan si aan ahayn ha lagu dayo daaweyn mayso geel duday dhexdiisu xara lagama qabto yaa layidhi dadku hadday kacaan si loola dhaqmaa jirte ciidan ma aha sida muxuu ahay loola dhaqmayo annaga haddii aan nahay dowladda soomaaliya dee soomaalinimo ayay noo dhibay arrintaas meel kasto geeska ugu xageeyo somaliland hadday tahay iyo geeska kale soomaaliya hadday tahay iyo soomaalida xataa xuduudaha ka baxsan hadday dhibaatoonayso waa la xanuunsanaynaa waanana dhibay raallina kama ihin marmarka qaarkoodna qof calankii soomaaliya oo buluugga ahayo xidigta dhexda uga tiilasadaha u lulaya ee haddana dhibaateeno markaa aragnana waa si gaaran haddana usii xanuunsanayna oo gaar ahaan siyaasada noogama jirto wax kale noogama jiraan dadkaas inay deganaadaan maamul iyo tale iyo hoggaan iyo maxaan ku raha deganaansho iyo amni inay helaan waayo wax aan ka danaynayn waa laga yaabaa warkaygaasi in dad badani si kale ay u fafasiraan sida marar horo badan ba dhacday laakiin haddana inaan dhahna ka xishoomayno kana gabamayno arrinta hala dejiyo nabadaan ku baaqaynaa dowladnimo nabaday ka dambaysaa hala dejiyaan leenahay dadka reer laascaanana waxaan leenahay lafsadiinu dega oo hadal usoo istaaga oo gubidda iyo jibinta iyo maxaanku irahdaa daaya dhiigana yaa dhiig meesha ku daato dhibaato unbaa ka imaanaysa wanaag iyo khayr ay ka imaamayo walaalahaasna intaasaan ugu baaqayna haddii alla yidhaah dadka soomaaliyeedna meel kastoo ay joogaan waxa fiican ha u rajeeyaano muxuu ahaay colaadda iyo culeysyada iyo ciriiriga meeshaas ka jiraan dowladaha iyo dadka mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiintuna intay ka gaabsan karaan ama ay dib isu celi karaan xalka soo hormari karaan iyo dadaalada iyo niyad samaanta arrinta kale ee runtii la yaabka ku riday dad fara badan ayaa waxa ay tahay markii madaxweynaha soomaaliya uu sheegay markaasi in ay dhibaato ku tahay oo uusan u dulqaadan karaynin markuu haddana arko qof soomaaliyeed oo calankii qaranka kor u haya oo maxaan kuu sheegayay midnimadii maxaan kuu sheegay u dhimanaya haddana taasi ay dhibayso laakiin kaasi waa iska hadal afka baarkiisa ayuu u muuqanayaa maadaama uu yidhi dee yacni wax mas-uuliyada oo iga saaran meeshaas maba jirtaba oo siyaasadeediba kuma jirto uu leeyahay bal aynu fiirino kelmadahaasna isaga oo markaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku uu markaasi ku hadaaqayo marmarka qaarkoodna qof calankii soomaaliya oo buluugga ahayo xidigta dhexda uga tiilasadaha u lulaya ee haddana dhibaateeno markaa aragnana waa si gaaran haddana usii xanuunsanayna oo gaar ahaan siyaasada noogama jirto wax kale noogama jiraan dadkaas inay deganaadaan maamul iyo tale iyo hoggaan xasan sheekh maxamuud sidii caadada u ahayd nin markaasi iska qoslaya oo jawi farxada ku jiro oo xataa jawi murugo oo dad shacab oo la xasuuqay uu ka hadlayo ma moodid arrinta la yaab kale waxay tahay in uusan soo hadal qaadinba xasuuqa ay markaasi geysteen ciidamada maleeshiyaadka ee maamulka somaliland gudaha magaalada laascaanood muddo 10 maalmooda gudahooda markaasi shacabka ku rasaaseynayay intii aanu kacdoonkan shacabkii ahi kicin islamarkaana magaalada banaanka looga tuurin waxaad mudday hadalkiisa markaad qiimeyso xasan sheekh maxamuud in xoogaa uu eedda saarayo dadka reer laascaanood leeyahay maxaad la kacaysaan oo maxaan kuu sheegayay aada u diideysaan maamulka ogolaataan oo hoos taagnaataan maamulka soomaalidiidka la wada ogyahay inuu markaasi diidan yahay qarannimada soomaaliyeed
arinta ugu weyn ee dadka reer laascaanood iyo maxaan kuu sheegaa isku haystaan maxaan kuu sheegaa nimanka la yidhaahdo maleeshiyaadka somaliland wax kale ma aha war waan go-aynaa iyo anagu go-i mayno oo adeer qaranka yaga meel loogama soconno waa intaa keliya waxa laisku hayaa dadkiina markaa arintii qabiil bay kuwan usii bedelayaan oo sidan bay ka dhigayaan xaqaasi ka dhigayaan dabcan waanaba tahay oo hadda dee qabiil caadi oo bay arintii noqotay oo dee duulimada cad ayaad u jeedaay oo xataa meelaha qaarkood oo laga taageeri lahaa maxaan kuu sheegaya khaatumo waxaad moodaa iyo dadka shacabka deegaankaas in ay arintaasi saameyn ku yeelanayso marka xaqa ilaahay ayaa jecel bulshada soomaaliyeed oo dhan dadka wanaagga jecel soomaalinimada jecel midnimada jecel way taageersan yihiin markaasi kacdoonka qaran markaasi shacabka magaalada laascaanood ay sameeyeen banaanka ugu tureen maamulka soomaaliyadiidka ahaa iyo maleeshiyaadkiisii oo muddo 15 sano ku sugnaa halkaasi haddii marka ay xaaladdu sidan kusii socotana waxaa sii badanaya khasaaraha labada dhinac waxa u wacan maamulka somaliland inuu meeshaasi iskaga huleelo xasan sheekh maxamuudna waxa u wacnay isagana in haddii uusan xataa kelmada adag ka odhan karin arrintaasi inuu iska aamuso afkiisa iska haysto oo sidii markii hore uu isaga aamusnaado laakiin maanta waxaad moodaa inuu cadaynayo inuu u haysto keliya in markaasi magaalada muqdisho keliya uu madaxweyne ka yahay bulshada soomaaliyeed oo dhan uusan markaasi madaxweyne u ahayn oo uusan matelin isaga ayaaba afkiisa ka qiraya oo waxa uu sheegaya markaasi in markaasi uusan wax siyaasada ka lahayn magaalada laascaanood walaalkan aadan karaama haddii ay tahay markii ugu horreysay soo boqoto fadlan subscribe tan ugu sharaf fariixka malaalka cas noqo qofka ugu horreeyay soo gaaraan muuqaaladii dhacdooyinka kala duwan ee xiisaha leh halkan ku gudbino haddii aad hore inala joogtayna aad ayaad u mahadsan tahay muuqaalka like muhiim ayay tahay muuqaalka like noo saar tan iyo muuqaalkan mid ka xigay intaan ku kulmanayna waxaan kaga tegayaa nabadgelyo